qiyaastii 2.1 milyan oo qof oo ku nool 32 county ama ismaamul oo dalka ah ayaa wajahaya xaalad cunto yari iyo nafaqo darro sii xumaanaysa kadib markii ay di'i waayeen roobabkii la filayay in bilihii la soo dhaafay October ilaa iyo December ay daan qiimeyn ay sameeyeen hay'adaha dawladda ayaa muujisay in fashilka roobabka uu si weyn u saameeyay nolol maalmeedka bulshada gaar ahaan deegaanada qalalan iyo kuwa abaartu ay ku badan tahay isla markaana saameyntu ay gaartay xitaa gobollo horey loogu aqoonsanay inay ahaayeen kuwa cunto ahaan isku filan degmooyinka sida weyn ay abaaruhu u saameeyeen waxaa ka mid ah Mandera, Wajir, Marsabit, Garissa, Turkana, Samburu, Isiolo iyo Baringo sidoo kale degmo hoosaadyada ay xaaladdu aad u daran ay ka jirto ayaa lagu tilmaamay waqooyiga Mandera, koonfurta Wajir, bariga Wajir iyo galbeedka Wajir sidoo kale waxaa ka mid ah deegaanada kale ee carabka lagu dhuftay waqooyiga Hor waa Isiolo deegaan baarlamaneedka Dadaab bariga Turkana iyo koonfurta Turkana iyo waqooyiga Samburu abaartu waxay sidoo kale ku fiday qaybo ka mid ah dalka gaar ahaan bariga dalka xeebta Rift Valley bartamaha dalka iyo galbeedka Kenya iyadoo ay saameeyeen inta badan degmooyinkaas aan kor ku soo xusay waaxda saadaasha hawada ayaa ka digtay in degmooyinkan ay u baahan yihiin taageero joogto ah oo cunto iyo nafaqo ah gargaar caafimaad iyo quudinta xoolaha ugu yaraan 6 bilood ee soo socota ilaa laga helayo roobabka bilaha Maarso iyo May waa sanadka 2026 si wax looga qabto xaaladan waxaa la qabtay shir heer sare ah oo ay ka qayb galeen wasiiro xogayaasha wasaaradaha madaxa fulinta ee hay'adaha qaar madaxda wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda iyo golaha degmooyinka wadanka kulankan ayaa diradda lagu saaray qiimeynta baaxadda dhibaatada iyo qarashka tallaabooyinka degdega ah ee loo baahan yahay mas'uuliyiinta dawladda ayaa sheegay in doodaha lagu lafaguray gargaar degdeg ah oo cunto iyo mid kale oo biyo ah iyo taageerida xoolo dhaqatada iyo tallaabooyin lagu yareynayo saameynta qoysaska nugul ay ka dhaxlayaan abaaraha si daba dheeraanayo waxaa la qorsheeyay kulan kale oo daba socdo midka maanta dhacay kaas oo ay ka qaybgeli doonaan saaxiibada beesha caalamka hay'adaha gargaarka bini'aadanimo ururada aan dawliga ahayn iyo waaxda gaarka loo leeyahay dawladda ayaa la filayaa in markaas kadib ay soo bandhigto qariirad dhammaystiran oo ah wax ka qabashada abaarta taas oo qeexi doonto tallaabooyin waqti gaaban iyo kuwa waqti fog oo si wadajir ah loo fulinayo